dadku baadisiyay u baraarugeen afariyo bariyo meelo qaybsigi ka bogsoonayo doorashano bilbila sahankiino birmaaday waa bishaarowna yidhi dhulbarwaaqa oo baad lagu soo barto in la beegsadaa tan lagu ballamay تعليم بتصادي كبربوراي علمي وبلشديو بهدوبا ويوبانتي كاريناغو بنار ما يسكبو حنا بربركي جرتا باركادو كبغن مدير برواقو باري سما مشمشية برواقو لجعلية برواقو يويا برواقو يويا برواقو يويا أحسنت سانا مركا ولا ليال آد باو ما سنتين سيدة شرفت له أو وناكسن أو كالقعيلة أو نوصو دويسين آد أزو ما سنتين غير برواقو آد باو ما سنتين وحان اندسي Chief Adano Girls Secondary School sawa sinigo waxa ku jirto maanta gabdha 140 gabdhood ayaa ku jirto form 1 iyo form 2 soma school kaaseeto waxa bilaabay waxaana loo bilaabay beeshan aan hor istaagane ayaa leen bilaabay waayo dan kuma jirto inaas bute aadin ama wajeer west aadin ama meel kale aadin gabdhihiin meel kale la geeyo dan kuma jirto gabdhaha waxay aadi jireen furaha girls ay aadi jireen waagbari girls habeenimo meeshan ka dareeri jireen meel dheer ay aadi jireen sooma laakiin maanta waalin hili gabdhihiin waxa loo bilaabay school at your doorstep irideena ayaa laga bilaabay sooma ka bilaabay waxaan kala ku taragalnay inaan magaalada meeshaanayto haddana health center aan ka hagaajin soo ma garan intaasna waa yeeli doonaa waxaa kaloo jirta aniga beesha ajuuraan waa soo qaaday maalin dhawaad waxaan u ballan qaaday runtii 1 million shilling bursary ayaan u ballan qaaday oo cidda beesha ajuuraan insha Allah biidhnillaahi kariim ayaan u ballan qaaday waxaa kaloo ka mid noqonaysiin CDF-ka dadka maamul guddiga ayaa iska mid noqonaysiin oo aan ballan qaada insha Allah biidhnillaahi kariim ayaa iska mid noqonaysiin xibnaha sideedka ilaa kwanza itakuwa ya ajuran sawa war hadee baasare lagu siiya CDF membership kaas ka noqotid simumopokewa waxaa kaloo ballan qaaday fresh fruits market livestock market nitawapatia wakina mama 1 million shillings waweze kufanya biashara wakujazie biashara yao ile ya fresh market na hapa pia nitawapatia 1 million shillings ili waweze kuboresha biashara yao na waweze kujibudu kibinafsi sawa hiyo ni hati nitaichukua lakini waxaa walaalayaal inaad kurihiin asku noqotiin asku baahi baxdiin danaheyn asku gudutiin arkayn as codotiin sawa muko tayari inaad arkay u codeysin muko tayari tarehe 9 mwezi wa 8 2022 inshallah biidhnillaahi kariim kura yote ni ya 8 saa ngapi Asante sana. Mheshimiwa Arkey karibu sana. Unaona watu wako dadkaini waad u jeedaa. Anaga Juuraan sana manaqaano. Ana lagu sirin aan lagu dhihin dadkan dhan waa dadkii North ama West aan lagu dhihin. Tarehe 9 ndio utakuja kuona. Lakini kabla ya tarehe 9 hata uliona results. Uliona Barwago Fresh Market. Uliona Barwago Girls Primary. Uliona Barwago Health Center. Barwago Mixed Secondary School. Bangal Primary School. We have so many new polling centers. Markaan dadka dhahayana Juuraankan hadhow waa guuri doona. Taariikh 9 ayaa la isu joogaa Soomaa. Insha Allah wadu Ilaahay ma yadhin taariikh 9
ndio kila mtu tutaonana ana kwa ana vizuri sana inshallah. Ciidan marorona way ku qaade mheshimiwa maalin dhaweed meesha cala masaar lagu hagaajinayo waan ku qaadne haddana mar labaad waan ku qaadne Madam K. Kwanza we are rhyming ni Madam K na RK. Madam K na RK tunataka tarehe 9 inshallah mimi niende county assembly. waxaan idin sheegi rabaa anaga run ahaantii markaan nahay wali banaanbax badan iskugu soo bixin ugu horeyntii anaga waxaan wadanaa MCA Khadija Abdullahi Macallim ayaa dadkan oo idil horta ay u ololeynahay saan jeclahay tan labaad anaga waxaan soo dhaweynaynaa Rashiid Qaasim Amiin oon u baahanahay inuu noo noqdo ninka anaga wakiilka naga ee xagga baarlamaanka nationalka bana Rashiid karibu hori baan u qaadnay haddana waad u jeedaan inaan qaadnana waa ugu tirigalnay soo uguma tirigalin Rashiid Soomaali ka hor anaga ma qaadin haddana waa noo imaado waana nala jira waana nala joogaya laga bilaabo maanta ololihiisa waa soconaya xaafadeena xaafad walba waa tagaya ilaa laga gaaro tara 9 oo u codeyno oo noo soo noqdo oo banaanka haddana geel ku qalan inta iyada waa wada soconaynaa soo diyaar uma nihin Rashiid Qaasim Amiin soo dhawow meeshaada ku soo dhawow dhulkaada ku soo dhawow ciidaada ku soo dhawow meeshan marti kuma tihid mar hore aan ku soo qaadnay mar labaadaan haddana ku soo qaadi haynaa waan ku dhisnay welcome iyaan ku leenahay tan labaad walaal meeshan waxaan ka cadeynaa Rashiidow waxaa la dhahay Soomaali waxay ku mamahdaa waxay ilhaysa ilaa la ka dheer waan ku soo dooranay waxyaalo fara badan ayaad naga ballan qaadi waxna waad oofisay waxna way ku laaban yihiin u maleeyaa adiga waxaan ka soo dooranay qaas ahaan soo mujiinga xasna macallin buula way ku soo qaadi soo maxay ahayd haddana meesha buula barwaaqo waan ku soo qaadnay haddana waad u jeeda maalintii iyo maanta la joogo 22 farqi weyn meesha u dhaxeeya adi baa lagu taagan yahay hadduu ilaahay raali ka dhigo waxaana diyaar u nahay inaan ku geeyno aan baarlamaanka mar labaad kuugu soo celin mar labaad inaan kuugu soo celino iyaan diyaar u nahay waa nala ongada waan qaadan waayni waa noola fadhiista waa diidne wax kastaan isku sameey waa diidne iyaan on taageersanahay Rashiid Qaasim waxaan ka codsanaa walaalo inaad adiga cadaalad ahaata inaad cadaalad guud ahaan u ahaata Rashiid Qaasim Amiin waan ku duubanahay kuraha waan ku soo dhicinaynaa waxaan u baahannahay inaad saas adin nooga duuban sidaas in nabadgelyo